qubo ama diidin badeed sidaad u taqaanid ayay badbaadisay kadibna oo u abaalguday. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. waa idin salaamay dhammaan akhyaarta ku xiran dhalaan koris. fadlan haddii aad janaalka cusub tahay kusoo dhawow oo subscribe dhe gambaleelkan u furo, hana hilmaamin inaad sheekadaad like inoo saarto. sidoo kale haddii aad naga daawanaysid Facebook, waxaan ku xusuusinayaa inaad videoga like inoo saarto, sharena inaad dhahdo sheekada asxaabtaada aad la wadaagto, kuna soo biirto Facebook pagekeena dhalaan koris si aad uga hesho sheekooyin ku xiiso geliya 1 2 3. waxaan filayaa inaad sheekada like inoo saartay. mahadsanid. haddana waxaan u gudagalaynaa sheekadeenii xiisaha badneyd. beri ayaa waxaa jiri jiray boqortooyo aad u weyn. boqortooyadaas waxaa ku noolaa 2 gabdhood oo yaryaraa, welibana walaala ahaa. labadooduba waxay ahaayeen kuwo isku da' ah. mid waxaa lagu magacaabi jiray Ellen, halka midda kale lagu magacaabi jiray Selena. Ellen waxaa dhalay boqorka oo gabadhiisa saxda ah ayay tahay, halka gabadha Selena ay ahayd gabar yar oo agoon ah oo uu boqorku soo helay hadda ka hor, oo intaa kadib uu soo korsaday isaga walaalna uga dhigay gabadhiisa kale ee Ellen. Ellen iyo Selena waxay lahaayeen 2 dabeecado oo aad u kala duwan. boqorkuna waa ogaa labadan gabdhood farqiga u dhaxeeya oo yaraantoodiiba waxuu ka dareemay inay kala duwan yihiin, halka gabadha Selena lagu magacaabo oo ah gabadha uu soo korsaday boqorka mid caqli badan, welibana xilli walba wax barataa oo ku dadaasha waxbarashada. gabadhi kale ee Ellen waxay ahayd gabadh iska cayaartaa, welibana asxaab xun saaxiibo la noqotay oo cayaar aanan ka bixin weligeed. boqorka aad buu uga niyad jabay gabadhiisa qaabka ay ku socoto, welibana waxay ahayd mid sida uu ka rabay aanan ahayn, halka gabadhii Selena ay noqotay gabar garabkiisa taagan oo markii qaan gaartay wuxuu ka dhigtay la taliyo. mar walaala markuu shirka galayana way la socon jirtay. boqorkana waa uu aaminsanaa gabadhaas, halka wasiirkiisa uu ahaa mid aad u xun. wasiirka iyo weliba wasiirada kale ee kasii hooseeya marnaba kuma aysan qanacsanayn gabadhan boqorka la socota ee aad ku caqli badan, welibana mar walba boqorka tusisa tilmaamo aad u wanaagsan. waxay yidhaahdeen gabadhan intay joogto waxba ma xadi karno, faqiir ayaan noqonaynaa. waa runtiin ayuu ku yiri, gabadhan waa inaan iska fogeynaa oo aan ka saaraa qasriga oo dhan. wasiirka oo ahaa mid ugu awood badan boqortooyadaas ayaa wuxuu awood u lahaa inuu qasnada boqorka iska maamusho, laaluush badanna oo uu bixiyo, welibana lacaga badan ka daldasho. balse waxaa caqabad ku noqotay gabadhii Selena ahayd oo boqorka la taliyo u ahayd. waxauna go'aansaday gabadhaas inuu ka saaro boqortooyada iyo qasriga oo dhan. waxauna la heshiiyey gabadhii kale ee Ellen ahayd. Ellen ayaa waxay ku tiri, wasiirkow waxaan ku weydiinayaa sababta oo aabbahay iiga doortay gabadhaas Selena lagu magacaabo, oo ayad uu la tashadaa, welibana uu ka haystaa shir walbo, halka aniga uu iga tago. waan fahmi laha ayuu ku yiri boqoradeydiyey, arrinkaasna waa in wax laga qabtaa, sababtoo ay tahay adiga ayaa xaq u leh boqorka, adiga ayuu ku dhalay qasriga inaad maamushidne, adiga ayaa lagaa rabaa, sidaad ku maamuli lahaydne waa kaa caawin kara haddii aad rabtid. waayahay ayay ku tiri, sidee ayay uga caawin kartaa? dhagtiiken ayuu ku yiri, wax buu u sheegay. kadibna way soo baxday oo seeftii boqorka ee dahabka ahayd oo aad kugu jeclaa intay kasoo xaday bay u keentay wasiirkii. isagana waa uu soo qaaday, kadibna waxa uu ku qariyey qolkii gabadha Selena ahayd, weliba ayadoo hurdo ayuu ku qariyey. subaxdii markii la gaaray boqorkii waxa uu waayay seeftiisa, welibana waxuu yiri hala raadiyo seefteydii, ciddii xadayne waan ciqaabi doonaa. ugu dambeyntii waxaa laga soo helay qolkii Selena. boqorka aad buu u carooday. Selena haliigu yeera ayuu ku yiri. Selena ayaa loo yeeray, markaas ayuu ku yiri, gabadheedii waan ku jeclaaday, maxaa ka wadaa oo aad seefteyda aad u xaday? maya ayay tiri, waa la inabayaa aabbo, aniga seeftaada inaan xado weligay kumaanan fikirin. wasiirka ayaa soo booday, markaas ayuu ku yiri, xalay aan arkay ayadoo qolkaaga galaysa gabadhan, welibana waxaan isdhahay boqorka waa uu soo jeedaa, isaga ayay nala hadlaysaa, waxba maanan dhihin, ayada ayaana seeftaadii xaday. intaa kadib gabadhiisii kale Ellen ayaa ugu dartay, aniga ayaa arkay aabbo qolkaaga ayadoo kasoo baxaysa oo wax la dhuudhuumanaysa. boqorkii wuxuu yiri hala kaxeeyo oo hala geeyo jasiirad cidla ah, jasiiradda bad dhexdeeda ayay ku taalaa, cidna uma dhowa. meeshaas ayaa looga soo tegay gabadhii Selena ahayd. ayadiina waxay la qabsatay jasiiraddaas inay ku noolaato, welibana cunna waxay ka dhigi jirtay miraha ka baxo keynta. halkaas ayayna joogtay in muddo ah. habeenadu way iskurayaan. habeenada ka mid ah ayadoo xeebta wareegaysa ayaa waxay aragtay diidiin badeed ama qubo meel ku dhibaataysnaa,
way soo badbaadisay oo meeshii way ka soo saartay bannaanka ayayna keentay. Qubadiina waxay istiri maad u mahad celisid gabadhan ku badbaadisay. Intay afka kala furtay bay uga soo saartay miro yar oo kalarka dahabiga leh. Kadib Selena mirihi ay soo qaadatay ayadoo weliba u muuqata inay fahantay qubada waxa ay ka rabto oo waxay ku tiri waxaad u baahneed soo maaha inay mahad celisid. Waan ku dareemay, waad mahadsan tahay. Mirahaagane aad ayaan uga helay ee hadda iska laabo baddaadana gal, mar dambena meel kale ha ku dhegin ee tartiib u soco. Mirihii ayay dhulka ku aastay oo waxay ku duugtay ciid. Habeenkiina halkaas ay uga tagtay ayadoo weliba fiirinaysa waxa ka soo bixi doona biri subaxdii markii la gaaro. Qorraxdii ayaa soo baxday subaxnimadii, kadibna gabadhii hurdadii bay ka soo kacday ayadoo u soo baxday birihii ee beertay oo isku bedelay geed weyn oo weliba miro badan dhalay oo aad u macaan badan, kalarkoodu dahabi yahay. Hal mar ayay soo goosatay, way dhadhamisay. Mirihii mar alla markay dhadhamisay macaan waxay ku aragtay aysan weligeed hore u arkin. Geedahan halkee bay ku aala jireen ayay istiri. Haddana fikrad kale ayaa ku soo dhacday. Gabadhan sida lagu yaqaano waa mid caqli badanee mirihii way u bateen. Miro walba ay cunto waxa ugu soo baxaya iniina yar oo wax laga beeri karo. Kadibna waxay bilowday inay geedo badan ay beerato. Maalinba maalinta ku xigta geeda ayaa u soo bixi jireen. Geedihii bay qori intay ka soo guratay ay isku xirxiratay, kadibna ay ka dhigatay doon. Welibana miro badan ayay ka soo guratay oo waxay u soo safartay dhanka iyo magaalada. Wayna ka soo badbaaday jasiiradii. Miraheedii ayayna bilowday inay ka ganacsato. Dadkii magaaladaas deganaa aad bay uga heleen. Ayadiina halkaas waxay ka faa'iiday hanti aad u fara badan. Dhul weyn ayayna ku gadatay. Kadibna waxay samaysatay boqortooyo ayada u gaar ah oo ayada ay madax ka tahay oo ay boqor ka tahay. Dad badan ayayna soo jiidatay oo way u soo camireen boqortooyadeeda. Haddaan u soo noqono boqorkii soo korsaday Selena, waxa uu noqday mid waayeel ah. Welibana wax uu awoodi waayay inuu boqortooyadiisa uu maamulo. Waxa uuna noqday mid cidlaystay oo waxa uu tala ka heli jiray gabadhiisii yareed ee Selena ahayd. Gabadhan kale ee Ellen ayaa soo sharaxday kursigaas oo waxay ku tiri aabo aniga ma di aamintid, aniga ayaa kula shaqaynaya. Wuxuu ku yiri waa ku aaminay. Ellen markii darajadaas ay heshay haddana wasiirka ayaa u imaaday. Wuxuu rabaa inuu ku qanciyo inay aabaheed xukunka kala wareegto oo ay ayada boqor noqoto. Kadibna wuxuu ku yiri aabaha waad u jeedaa boqoradeedii inuu waayeel noqday, weliban uu awoodi la'yahay inuu maamulo qasriga oo go'aano daciif uu qaato maalmahan. Qofka kaliya buuxin karana waa adiga. Waxay ku tiri haa waan la socdaa, balse boqorka waa aabahay taa la soco, maxaan samayn karaa? Kadibna wuxuu ku yiri ha ka welwelin, annaga ayaa ku caawinaynaa, waana ku taageeraynaa. Markaad guulaysatidni adiga ayaa noo taliyo oo boqoradeena ayaad noqonaysaa. Intaa kadib Ellen way aqbashay. Waxayna istiri maad adigaba boqorada noqotid. Kadibna aabaheed ayaa u timaaday. Aabihii kuma uusan adkaynine waxa uu ku yiri taajka oo madaxa suro, halkan adiga ayaa boqorka ah saacadan laga bilaabo. Ellen waxba kama aysan garanayn xukunka, waxaana qasrigaas maamuli jiray wasiirka oo ahaa mid aad u xun. Gabadhii Selena ahaydna waxay tabaysaa oo ay niyadda ku haysaa aabaheed oo ay u xiistay. Inkastoo ay ka fog tahay, waxay jeclaan lahayd inay la kulanto. Waxayna bilowday inay warbixinta aabaheed ay soo hesho. Taliyaha ciidankeeda ay u yeerato. Waxay ku tiri waa inaad ii soo ogaataa boqortooyadu ka taliyo aabahay iyo xaaladda ay ku sugan tahay. Hal maalin kadibba warbixintii ayuu u keenay. Wuxuuna u sheegay arrimaha ka jira boqortooyadaas. Aad bay uga carootay oo waxay dareentay in la khiyaanay aabaheed. Waxayna dareensaneed inuu wasiirka ahaa midka arrinkaas oo dhan ka dambeeya. Mar labaad ayay weydiisay ma hubtaa ayay ku tiri inay waxaas oo dhan ay dhaceen. Haa ayuu ku yiri walaasha ayaa la wareegtay kursigii. Ma rumaysan ayay tiri walaasha inay sidaas oo dhan ay u xuntahay. Waxa ka dambeeyana waa wasiirka, aniga ayaana shaqadiisa aqaana ee noo diyaar ciidamo aad u tiro badan. Waxaan aadaynaa boqortooyadaas biri subaxdii. Subaxii markii la gaaray ayay soo baxeen ayagoo ganacsade iska soo dhigay. Welibana mirihii ay ka ganacsan jirtay ayay soo qaadeen. Waxayna u imaadeen boqortooyadii aabaheed ka talin jiray. Dahab yarna way soo hordhigeen oo wasiirkii ay la shirayaan. Waxay ku dhaheen annaga waxaan nahay ganacsato, waxaanan ka ganacsanaa mirahan, waxaan rabnaa boqortooyadiina dhexdeeda inaan ku faafino mirahan. Wasiirka ayaa ku yiri way fiican tahay, wax dhibaato ahna kama jiro. Mirihiina waana dhamiyay, aadna u macaan yihiin, caafimaadkana way u wanaagsan yihiin. Waxay ku tiri waad mahadsan tahay sidaad nooga aqbashay, hadiyadanna waan ku wadaa. Selena waxay degaysaa qorsho. Ciidamadeeda ayay waxay ku tiri waxaan u baahanahay inaan meel walba oo muhiima aad qabsataan, welibana aad ogaataan meelaha muhiimka ee boqortooyadan ay leedahay, weliba khaasatan qasrigan meelaha laga ilaaliyo iyo meelaha laga soo galo. Ciidamadana waa inaa meelahaas aad ku diyaarisaan. Asbuuc gudihiisa ayaan rabnaa mishinkan inaan ku fulino. Waayaha ayay ku yiraahdeen boqoradeedii.
waxaad dagaal aad bilaabi kartaan mar alaala markaan amar idin siiyo welibana aan hoon ka yeeriyo mar alaala markaad hoon ka maqashaan shaqadiina waad qabsan kartaan ciidamadeediina waxay bilaabeen inay isku dhex qariyaan ciidamada qasrigan uu lahaa oo qaar waardiye ayay noqdeen qaarna waxay noqdeen ciidamada dagaalka u diyaarsan ee keedka ah halka kuwa qaar ay waardiye ka noqdeen meelaha khaaska ah oo dadka la aaminay oo keliya loogu talagalay Saleena ayaa wasiirkii wixii ka codsatay inay u geyso boqorada oo u keeno wuxuu ku yiri boqoradeedii gabadhan ku sheegay waatana waa ganacsato waxay ku tiri maxay iga rabtaa aniga maxay ii dalbatay inaan ula kulmo Saleena way qososhay kadibna hal mar ay lama filaan uga dhigtay oo wajiga ay iska furtay way aqoonsadeen isla markii way isku naxeen oo kama aysan filanayninba gabar ay meel ku soo xireen inay noqon karto gabar taajirad ah oo intaanu hantiya leh sida ay kugu suura gashay ay ku yiraahdeen maxaas halkan aad ka soo doontay waxay ku tiri anigii waana soo laabtay sabab ayaan u soo laabtay wasiirkan ayaan ogahay inuu aabahay khiyaanayo adiga ayuu ku adeegsanayaa waa qof xun wax walbana adiga ayaa fulinaya aabana waxaad ku qasabtay inuu iska dhiibo taajka oo uu boqortinimadiisa ka tanaasulo Ellen ayaa waxay tiri booskan aniga ayaa iskale ha ii soo dhaqsado ama ha ii soo daho aabahayni waa u duqoobay mar walbana waxa fiican dadka duqoobay inay nastaan maya ayay ku tiri ninkan ayaa ka faa'iideysanaya wax walbana isaga ayaa ka dambeeya waa nin xun ninkan ayaana ku maamula adiga waad hurdaa kursiga ayaa isaga fadhisaa balse war ma haysid wasiirkii ayaa la soo booday naagtan waxay u soo laabatay inay kursiga ka xishato hala qabto hala xiro kadibna amar u bixiyay waxaa soo cararay waardiyihii gabadhii Saleena ahayd ayayna qabteen gabadhaana wax cabsi ama muujinin oo wayba dhiiran tahay wayna isku kalsoon tahay waardiyihii way qabteen gabadhiina xabsiga ay u taxaabeen halkaas ayayna ku jirtaa waxaa rumooba ayay tiri shakigaan ka qabay wasiirka isaga ayaana ah qofka saxda ah ee mishinkan oo dhan soo abaabulay waxay kadibna waxay maqashay shanqar ka soo imaanaysa dhanka iyo albaabka xabsiga waxaaba u soo galay ninkii horjoogaha u ahaa ciidamadii ay wadatay wuxuu ku yiri wax walba waa diyaar sidaad noo amartay ayaan u samaynaynaa waa okay ayuu ku yiri qorshahaynan waxaan filayaa inuu inoo hirgeli doono waxaa kaloo qorshe kala samaystay wasiirkii oo haddana damac kala galay wuxuu yiri gabadhan inay ayda boqor ku ahaato waxaaba ka fiican adiga inaad boqor ka noqotid oo aad xilka kala wareegtid walaashadna waad iska xirtay hadda kadibna cid ka hor imaan kartaa maba jirto adiga ayaana ka talinaya wadankan oo dhan kadibna waa u soo baxay isagoo aad u xareysan albaabka ayuu lugta ku soo furay weliba si akhlaaq dara ah gabadhii ayaa aragtay wayna la yaabtay maxaa kugu dhacay ayuu ku tiri oo maanta sida u socotid waa maxay ciidamadan faraha badan ay kula socdaan maanta maxay yihiin qorshe kale miyaad damacsan tahay ii sheeg kadibna wuxuu ku yiri dhibaato ma jirto boqoradeydii aniga waxaan rabaa kaliya inaan boqor noqdo oo aan halkan aan xukumo saacadan kadibna adiga kuma baahni waan isku filanahay ciidamadeydana waxay awood u leeyihiin inay wax walba ii fuliyaan aniga ayaana gacanta ku haya awoodda boqortooyada oo idil gabadhii war ayaa ku cadaatay kadibna waxay tiri walaashay way saxneed adigana waxaa tahay tug anigana waan khaldanaa markaas ayuu ku yiri tug waa iska ka dhihi kartaa wax alaala waxaad rabtid waan kugu qaadanayaa balse ogow maanta ayaan kaala wareegayaa kursigan ee waa inaad i adeecdaa aniga ma ku adeecayso maxay ku adeecaysaa ayay kusoo qeylisay gabadhii Saleena ahayd waa isku naxay sidee ayay ku dhici kartaa waa lama filaan markaas ayuu ku yiri adiga maxaad halkan aad ka soo doontay waa lama filaan ma filaynin miya inaan halkan aan ka soo bixi karo wax walba oo dhibaato aad geysatay hadda ayaa lagaa gudayaa intuu ku qoslo ku yiri soo uma jeedid ciidamada hareerahayga taagan iyo kuwa qasriga ilaalinaya inay iga amar qaataan markaas ayay ku tiri adiga ayaa u maleeya ma ahine wax walbo waa sidaas cagsigeeda aydiina tookadeeda ayay ku qosashay kadibna taliyihii ciidankeeda wuxuu ku tiri hoonka yeeri intaa kadib ciidamadii oo dhan waxay qaateen amarkii ahaa hoonka markaad maqashaan waad weerar tegi kartaan ninkii ayay ku sii jeesteen kadibna way qabteen hadda ayaad ogaanaysaa ciidamadaada waxa ay yihiin ciidamada boqortooyadan waxay u adeegaan kaliya boqortooyada dadkeeda ay uma adeegaan dadka toogada ah hala qabto ayay tiri xabsigana hala dhigo intaa kadib waxaa laga guuleystay ninkii tuuga ahaa welibana khaayinka ahaa gabadhii kale ee Ellen ahaydna waxay walaasheed ka codsatay inay iska cafiso maadaama ay khalad weyn gashay oo waxay ku tiri dhooninimo ayay qaaday ninkan sidoo kale waa u khiyaanay anigan sidaan inaan sameeyo ma aanan rabin waayaha ayuu ku tiri walaashay waan ku cafiyey wax dhibaato ah
malahan mar walbana waxaan iskala shaqaynaynaa inaan hormarino boqortooyada. Labadii walaalana mar labaad ayay midoobeen. Ellen intaa kadib ayay waxay bilowday inay barato qaabka loo maamulo boqortooyada iyo weliba cilmiyo kale oo aad u fara badan. Aabihiina gabadhii Selene ahayd ayuu boqorad ka dhigay, halka gabadhii kale uu ka dhigay wasiir oo boqortooyada qofka labaad ee maamulaya ayay sidaas ku noqotay. Sheekadani macaaneed halkaan ayay noogu egtahay. Fadlan haddii aadan weli kusoo biirin janaalkeena subscribe dhawo hadda ka mid noqo asxaabta ku xiran janaalkan Dhalaan Koris. Sidoo kale Facebook pagekeena follow soo dheh, sheekadana share inoo dheh oo like-na inoo saar. Mahadsanid. Waxaan soo gaarnay qaybihii dambe ee su'aalaha. Su'aasha maanta waxaan ka dhigaynaa su'aal ayadana aad u fudud. Waxaan filayaa inaad dhammaantiin kasoo wada jawaabi doontaan. Waxaad sheegtaa inta maalin oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunyadu ku abuuray, dhulka, cirka iyo waxyaabaha u dhexeeya dhammaantood maalmo kooban ayuu Ilaahay ku abuuray. Maalmahaas tiradooda ayaa laga rabaa inaad sheegtid.